saddexaad bishii shanaad saddexdeedii 2018 waxaanu fadhinaa xafladda aynu jawaayista ku gudoonsiinayno ardaydii ku guuleysatay imtixaanaadka marka waanu mahad celinayaa macallimiinta iyo maamulka madrasadda waanu mahad celinayaa waxa kale waanu mahad celinayaa odayaasha deegaanka oo ugu horeeya marka caaqilku iyo gudida magaalada oo iyaguna runtii si wanaagsan oo soo dhaweeyay waalidka ardayda dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waxa weeyaan waxaanu hayn wafti ka timi burco oo dhalinyaradii deegaanku baan hayn anaga laftiga iyagu runtii waxaan u soconay waxay ahayd inaan kala qayb qaadano farxadda maalintan marka waan ku faraxsanay runtii inaanu aragno arday tiradan leeg oo habliyayna waba iskugu jira oo marka maanta halkan jawaayis lagu gudoonsiinayo waxa kale oo u mahad celinaynaa caaqil Saleebaan oo runtii isagoo hawl adag ku jira oo burcad jooga xafladdaas iyo ardayda madaarista ee maanta halka ku qalin jabinaya awoodoodu soo baxay runtii oo marka inaga soo gaaray inuu magaranaysaa inagala qayb qaato xafladda aad baan ugu mahad celinaa marka caaqilkana cid kasta oo ka qayb qaadatay waxa weeyaan dhiirigelinta ardaydan guud iyo dibadba si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa dadkeena dibadda jooga khaasatan hablaha oo khadar sheegay reer Norway oo runtii gacan muhiim ah ka qaatay aadna u jecel markaa inay dhiirigeliyaan madrasadda oo dhaqaale ahaan iyo magaranaysaa talaba ay ka qayb qaataan dhalinyarada kale ee reer Burco anagu ka midnahay markaa iyagana waan mahad celinayaa oo iyaguna runtii ka qayb qaatay jawaayista iyo hawsha waxa kale oo mahad celinayaa macallimiintii ilaa xalay tooleyna la joogtay ee imtixaanka diyaarisay ee ilaa saak ku guda jirtay markaa sixitaanka iyo ardayda ay si fiican imtixaanka uga qaadaan oo ka soo saaray markaa natiijo wanaagsan oo aynu maanta halkan kaga dhawaaqi doonno haddii Ilaahay idhaahdo marka aad iyo aad baan macallimiinta ugu mahad celinayaa waxaan leenahay waa roobaad salaadii casarna nagu soo dhowdahay waxaynu ku dadaalaynaa dadkeena inteena magaalada joogta iyo inta deegaanada inagu dhowdhow dhammaantood in aynu ku dadaalno quraanka iyo barashada kitaabka iyo magaranaysaa sunnada rasuulka kaleey salaatu wassalaam macallimiintana insha Allah waynu soo kordhisan doonaa madrasad ballaaran baynu ka dhigi gunta aynu dhiishas kaga xidhan doonaa odayaasha deegaankuna aad bay uga shaqeyn doonaan arrinka haddii Ilaahay idhaahdo waxaan leenahay arrinkaasna ka wada shaqeyn haddii Ilaahay idhaahdo aad u mahadsantihiin waxaan sii bogaadinayaa maadaama hadalkaana ku soo noqonayn ardayda maanta halkan ku guuleysatay ee jawaayista lagu gudoonsiinayo hableeynamaba halkan inoo yasiray inagoo maanta daah furayna xaflad aynu ku maamuusayno ardaydii imtixaanaadka laga qaaday kuwii kaalmihii ugu horeeyay galay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intanoo arday ah oo deegaanka waxa weeye suuqsade kitaabka Ilaahay baranaya intanoo wiilala iyo intanoo waxa weeye habla ah waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu mahadnaqo Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa nimcadaasi inuu inoo ziyaadiyo oo inoo sii kordhiyo runtii waqtiyo hore maynaan haysanin nimcada noocan ah Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala inoo suurta galiyay runtii waxaan xasuustaa markii ugu horeysay ee madrasaddan waxa weeye la aasaasay 2015 awalkeedii bay ahayd 3 sano ka hor macallinkii ugu horeeyay la keenayna wuxuu ahaa macallinkii kan ka horeeyay ee macallin Axmed in badan oo waqtiyada ka horeysay waxa uu suurta gali weyday xagga waxa weeye duruufaha macallinka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta mahadi weeye haddii 170 ama 200 arday ay kitaabka Ilaahay baranayaan taaniyan waxaynu u mahadnaqaynaa cid kaste oo ka qayb qaadatay inay madrasadani furanto
oo sidan maanta ay tahay ay noqoto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmahooda uu ku yasiray oo ay ugu horrayso ciddii macallimiinta waxa weeye meesha dhigaysa ama macallinkaa meesha dhigaya mushaharkiisa qaabishay waxaynu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu siyaadiyo cid kaste oo odayaasha deegaanka ama dadka magaalada jooga ah oo ka qayb qaadatayna waxaynu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu siyaadiyo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaahay subxaanahu wa tacaala ha tuso xasanaadkooda ardaydana waxaan leeyahay nimcada qaaliga ah ee aa haysataan idinkoo tuuladiinnii miyigiinnii jooga in macallin qur-aan idin baraya uu idinku yimi waa wax ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadnaqaa runtii in tiro intan leegi ay madrasad tuulo ku taalla dhigataa waa arrin aad iyo aad u cajiib ah waa arrin aanay dad fara badani haysanin waxaan halkan si gaara ugaga mahad celinayaa xafladdan maanta aynu joogno oo ah in jawaa'is la siiyo ardaydii imtixaanka kaalmaha hore ku guulaysatay iyo qalabayn xagga madrasadda ah intaba waxaa ka soo qayb qaatay dad waxa weeye deegaankan u dhashay oo iska daa somalilan afrika aan joogin bal jooga adduunyada waxa weeye halka inoogu fog qaarkood dadka waxa weeye hawshaasi ka soo qayb qaatay may arag suuqsade inay malqaan mooyaane iska daa iyaga ee qaarkood aabbayaashood suuqsade may arag haddana runtii waxay garteen dadkoodii iyo deegaankoodii inay wax u taraan oo waxay qaban karayaan ay la qabtaan qoladaana qof kastaa wixii uu ka cabanayo waxa qura idin weydiisanayaanay idin soo farteen waxa weeye wax kale maaha haddaa deegaankii tihiin iyo haddaa ardaydii tihiin iyo haddaa odayaashii tihiinba waxa quray doonayaan waxa weeye in loo duceeyo waxaynu iyagana ugu ducaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala muraadkooda san siiyo oo wax kastoo ay ka cabanayaan qaarkood baa dhul gaalay joogaan qaarkood baa carruurahoodii oo ka xanuunsanaya ka cabanaya qaar baa carruurtii oo qalqaali ka noqotay ka cabanaya qaar ba arrimay ka cabanayaan laakiin waxaan leenahay ilaahay wix allaale wixii dhibaato ah ha ka duwo waxaan insha allahu tacaala maanta halkan uga bushaaraynaynaa degmada waxa weeye magaalada suuqsade in insha allahu tacaala ay ballan qaadeen qolyahaasi maanta tan waxa weeye inoo soo qabanqaabiyey oo lambarawan ay ka yihiin hablo waxa weeye u dhashay deegaankan oo jaaliyadda norway ah inay mar labaad ballan qaadeen inay macallin labaad mushaharkiisa bixiyaan kaana ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu soo guuleeyo waxa labaad aynu rajaynaynaa insha allahu tacaala macallimiin kaloo intaa ka badanna dadaalkeedii baynu ugu jirnaa in mushaharkoodii laynoo ballan qaado hadday hay-ada islaamiya tahay iyo hadday qurba joogta tahayba waxaan hadalkayga ku soo gebagabaynayaa awal waxaynu u dadaali jirnay inaynu madrasad furno oo madrasadii ku guulaysanaye insha allahu tacaala iminka waxaynu ku dadaali doonnaa inaynu maxad diiniya furno ilaahay ha inoogu yasiro dhammaantiin aad iyo aad ba u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kalena waxaa ma hesheen waa diintu waa nuurkii waxa weeye wax lagu dadaalo oo ilaahay ha idinku guuleeye inamadii halkaa qur-aanka ka akhriyey aad baan u jeclaaday waxa weeye sida sharafta leh iyo inamadaas ayay habluhuba ay qur-aankii u akhriyeen kuwii iskuullada iyo jaamacadaha loo dirayey intaasaa ka qiimo roon inta xaqiiqada akhriya adduunkana anfacaysaa waa kaa waalidku hadduu dhintana inankiisa walad xalaali hadduu ka tago waa sadaqa hallaala wuxuu u bixiyaa qur-aan ee uu akhriya
waxa weeye aad iyo aad baa u mahadsanti arrintaa nimankaa inoo yimi nimadaa inoo yimi waxa weeye aad iyo aad bay u mahadsan yihin wax wanaagsan bay inoo horseedeen waxaana weeye qolooyinka maxadka inoo hindisaya ee macallimiinta inoo hindisaya ilaahay jisaayi khayrla iyagana ha siiyo halkay joogaanna waynu uga ducaynayna wixii muraada ay leeyihiin allaha siiyo waxa weeye arrinkaa waxa weeye sidaa ayaynu arrinku inoogu gebagabaysmayaa xafladduna inoogu soo xidhmaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntii waxaa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore gashay waxayna sidoo kale guddoomiyeen agab waxbarasho oo ay soo gaadhsiiyeen dhalinyarada deegaankani ee ku sugan magaalada Burco. Axmed Nuur Ciise Maxamed, Axmed Nuur Samraawi, SBS TV, magaalada Burco.